السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادي برنامج كيني محي كولتهاي نبي عليه الصلاة والسلام حديث أي وحو إلي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. dad badan buu waxay isku taxallujiyaan inay ku tukadaan safka koobaad salaada markay masaajidka ay tagaan ama goor hore u kacaan salaada ama goor hore masaajidka u tagaan sida u istaagaan safiga koobaad salaada iyagoo maqlaaya xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu idhi haddaa ogtiin ajarkeeda ama fadliga ay leedahay in lagu tukado safka koobaad salaada waa isku dili lahaydeen. laakiin weliga ma isweydiisay waa maxaa sababta uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inagu dhiirigeliyey inaan ku tukanno safka koobaad salaada? anigu sababtii maandhoota ayaan gartay oo waxaan ka maqlay nin la yidhaaho doctor xusaam muwaafi. ninkaas waa nin dhakhtaro iyo caalim diina oo aada uga caana dalka masar. telefishinka isagoo maalin ka hadlaya ayaa wuxuu idhi markii koobaadii nolosheedan cimradda aan tago anigoo dhalinyaro ah ayaa niyadeyda waxa ku jirtay anigoo xadiiska nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadliga safka koobaad salaada ayaa waxaan go-aansaday inaan istaago safka koobaad aan ku tukado kacbadda horteeda. aniguna intan ku dadaalay buu idhi ayaan istaagay safkii koobaad. anigu xalkaa taagan nin baa imi oo igu dhiftay qacanta oo iga riixay safkii koobaad markaasaan aakhirkii safka aan tagay salaada. laakiin wuxuu ku leeyahy waan qalbi jabay oo aad baan ugu murugooday oo niyadeyda waxaa ku soo dhacday inuu ilaahay ga cadhaysan yahay oo aanu ii ogolayn sharafta inaan qaato maanta iyo ajarka ay leedahay inaan safka koobaad lagu tukado. anigoo murugaysan baan salaadii ka baxay. markaan sida uga baxayba ninkii u tagay waxaan ku idhi maxaad ii riixday, waa maxay sababteed igu diidaysa inaan safka koobaad ku tukado? wuxuu ku idhi adigu ma waxaad tahay xaafid qur'aan? wuxuu ugu jawaabo ku idhi maya. wuxuu ku idhi haddaba hadduu imaamku khaldamo isagoo qur'aanka akhriyaya sidaad ugu saxi kartaa khaladkiisa haddaanad xaafid qur'aan aanad ahayn? wuxuu ku idhi safka koobaad waxaa loogu talagalay dadka qur'aanka xaafid u ah ama qur'aanka garanaya sida markuu imaamku uu khaldamo uu u saxo khaladkiisa. wuxuu ku leeyay anigoo yaabsan ayaan ku noqday dalkayga. maalintii koobaadaan tagay dalkayga ama masar aan ku noqday waxa ugu horeeyaan sameeyey wuxuu ahaa inaan malcaamad qur'aan aan isqoro. markaasaan qur'aankii aan dhigtay waqti bay igu qaadatay laakiin waan dhameeyey xifdigii qur'aanka oo xaafid qur'aan ba noqday anigu niyadeyda ay ku jirto inaan fadliga iyo ajarkay leedahay safka koobaad markasta aan ka faa'iido. wuxuu ku leeyahay imanka safka koobaad markasta aan ku tukada waliba anigoo kalsooni weyn isku qaba oo hadduu imaamku khaldamo markiiba waan u saxaa. idinkana maxay idin la tahay? maxaa u malaynaysaan sababta uu nabigu nagu dhiirigelin jiray inaan ku tukanno safka koobaad salaada? waxaa u malaynaysaan inay tahay fikirkan uu ka aaminsan yahay doctor xusaam muwaafi sababta lagu tukado safka koobaad salaada? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.